السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوقاغا waxaa sameeyey ashraf baa waxaa sameeyey hiblaaya waxaa samaysay ikhwaani mawar aan la hubin baa maanta o dhan annaga faafinayna walaalaha iyagaa meel soo fadhiista isberiyeelay maxaa laga rabaa iyagaa waxay leeyihiin annagu waxa kuma jirno midda kale adiga maxaa kaaga jira adiga ma dembigoodaad xambaaraysa ma intay xumaanta la soo jaharay inay bannaanka la yimaadeen ma iyagoo waxaa samaynayaan innaga u aragnay war ikhwaani ilaahay laga cabsado war wax kastoo aan ku hadlaynay wax kastoo annaga aan samaynayno waa la qoraya maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid aakhira marka kitaabkaaga lagu soo hordhigo waxaad oran doontaa ilaahayo muxuu yahay kitaabkani dembi weyn iyo dembi yar midna kama tegine muxuu yahay waayo kitaab aan markaa dembigii yaraa ee aad ku hadashay iyo kii weynaa aad ku hadashay iyo wixii aad dembigii weynaa aad samaysay iyo kii yaraa aad samaysay intaba lagu qoray baa beritole lagu dhiibaya ha kaa saarta waayahay qofkan saasuu ahaa war qofkan dembigiisa adiga ma xambaaraysid faraha ka qaad isagaa wuxuu ku leeyahy ilaahay ka cabso ogow midda kalena intaad qofka wax leedahay qofka inta aad caynaysid ama intaad tuhmaysid ama intaad markaas isaga xumaan ka faafinaysid waxay la mid tahay adoo xasanaadkaaga qaybinaya xasanaadkaagaad u wareejinaysaa qooqaaga xasanaadkaagaa siinaysaa ashraf xasanaadkaagaa siinaysaa walaalaha kale ee aad maalin walba tuhmaysid tan kale ikhwaani iska ilaaliya ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyay ilaahaygii raxmaanka ahaabaa wuxuu leeyay qofkani hadduu maanta social media soo fariista yidhi aniga waxaa ma samaynina idaaya hala daayo faraha laga qaado laakiin maxaad adiga waayay dembi aadan ogeyn wix aadan ogeyn oo xaqiiqa ahayn caddayn keen maalintaad caddaynta keentid haa qofkaas waa lagu oogaya dembiga waxaa la leeyahy waxaasi waxa uu sameeyey warkaa waa cadiya tan kalena adiga ma tihid kii xisaabinaya ilaahay ma tihid subxaanahu watacaala ilaahay baa xisaabinaya ilaahay khalqigiisa u daa yaa ku daba dhiga adiga maa ursiluu calayhim xaafidiin marka ikhwaani qof kastaba wuxuu geystay ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ka abaalinaya inagana yaynan mawaadiicdan iyo waxyaabahan ku dhex rafanin wararka aan sugnayna yaanan baahinin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa ku leeyahay hadduu qof adiga markaasi faasiq ah oo xumaanta lagu yaqaano ilaahay ka furtay kuu yimaado war kuu sheego ha rumaysani ilahay wuxuu leeyahy in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanu qof faasiqa hadduu kuu yimaado war kula yimaado xumaan ha noqdo war run ha noqdo warkii horta soo xaqiiqsa adiga soo hubso بارك الله فيكم مرة موضوعنا كل إرادة ولا لها مركا أن دمدي قلين يجنا إسبرية إلي أرانا يا أنا جو حمانا جلني هنا لدايو هل لداي إخواني بارك الله فيكم أجر كنا إيه سنادينا إيه عبادتنا إيه مركز أدون كنا